بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضي داود لهانتين بميل كستو جوجتا كسو دوادا برنامجكيني دور جوجتا برنامجكيني دور جوجتا aynu kaga hadlaynay shabeelka Seerbiya iyo waliba seeraha weyn ee loo yaqaano Badriya dalka Nepal waa qaybtiisii labaad iyo barnaamijka balse marka hore fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo taageerayaasha channelkan subscribe garayso guji si aad ula socoto muuqaalada aanu mar walba soo galino una noqoto qofka ugu horeeya ee helaya warbixinaha iyaga dooro calaamadda jeleska amba gambaleelka sidoo kale like-ta ku dhufo oo share garee muuqaaladayada si ay dad badan u gaaraan fadlan haddii ay kula tahay inaad fakarkaaga ka dhiibato ama aad fakarkayaga nagu taageeri karayso qaybta commentiga noogu reeb fariin ama aragtidaada ka dhiibo inta haddaad samayso aad baad u mahadsan tahay dhulkani waa dhulka shabeelka seerahan Badriya waxa uu ku caan yahay waa shabeelka 5 kiiloomitir oo kasta waxa ku nool shabeel kaasi oo leh xuduud u gaar ah waxa ku nool duurjoog badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin waliba deerooyin barabaro leh iyo deerooyinka caadiga ah labadooduba waxay wada daaqaan isku goob waana isku dhex jiraan mar walba inkastay kala midab yihiin haddana waa isku qoys shabeelka Badriya waa mid mar kasta cuntadiisa raadsada fursadna ku eegta inuu ku helo waxa ku nool goobtan daanyeerka loo yaqaano baabuunka oo isagu mar walba shabeelka ku ah laf dhuun gashay waxa uu dareen geliyaa duurjoogta kale marka ay daaqayso kaasi oo uu ku qayliyo shabeelka markasta marodigani digniin ayuu shabeelka siinayaa shabeelkuna waxa uu ka talaabayaa webiga waxaanu leeyahay hay soo dhowaan agteedana ha iman talowga webiga ee shabeelku waa fursad ugaarsi waxaanu ka gudbay xuduudiisii waxay foodaystareen waa shabeel kale waa mid dhadig waana walaalo
haddana shabeelka iyo hareemcadku waxay leeyihiin dabeecado ka gaar ah duurjoogta kale. mid la noole ma jiro. marka ay hooyadu erido mid kasta gooni ayuu u noolaadaa. wax ugaar ah midkoodna maanta ma helin, balse mid ayaa dhaqaaqay, kii kalena waa daba dhaqaaqay, iyagoo isha iska eeganaya. hadda waxay rabaan inay ugaarsadaan deerooyinkan. aad bay ugu soo dhowaadeen si ay dhuunta uga galaan oo ay markaaba u qabtaan. ka soo horjeedkooga waxaa isna ku nool shabeel kale, kaasi oo ah mid lab. dhammaantood gabalkii ayaa u dhacay. maanta waxay ugaarsadeen oo cunto ay heleenna ma jirto. wiishu sida jeerta oo kale ayay ka soo baxdaa habeenkii webiga, waxaanay daaqdaa cawska. waddada waxaa ku soo jira walaalihii ahaa dhadigyada shabeelka. dareenka duurjoogtu waa mid mar walba soo jeeda, ogna khatarta la nool ee ku agmeeraysan.
waa markii ugu horreysay ee ay sidan u socdaan habeenkii, waayo waxba may helin intii uu cadceeddu ay soo jeeday. shabeelkani wuxuu daba socdaa duurjoogta oo kama hadhayo ilaa uu helo. sidoo kale shabeelkii kale ee dhadig ee labaad ayaa isna waddadii uu soo maray isna mar kale soo maray oo isagu daba socda walaashiisan ka horreysa. fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo taageerayaasha channelkan. Subscribe garayso, guji si aad ula socoto muuqaalada aanu mar walba soo gelino, una noqoto qofka ugu horeeya ee helaya warbixinaha iyaga. Dooro calaamadda jeleska amba gambaleelka. sidoo kale like-ta ku dhufo oo share garee muuqaaladayada si ay dad badan u gaadhaan. fadlan haddii ay kula tahay inaad fakarkaaga ka dhiibato ama aad fakarkayaga nagu taageeri karayso, qaybta commentiga noogu reeb fariin ama aragtidaada ka dhiibo. intaa haddaad samayso aad baad u mahadsan tahay. waa tahay daawadayaal, qaybta labaadna intaas ayaynu kusoo gabagabayn doonaa. inta aynu ku kulmi doono qaybta saddexaad waxaan leenahay dhammaantayo kadaba iyo kulan dambe oo xiiso badan.